subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. warar kala duwan ayaa laga heliyay weerar kooxo hubeysan ay ku laayeen dad shacab ah oo ka dhacay waqooyi bari Kenya iyo Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. roobab geystay khasaare kala duwan ayaa saacadihii u dambeeyay ka daayay deegaanada Puntland iyo tiro dad ah oo la soo badbaadiyay. madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen dad shacab ah oo dhawaan ciidamada AMISOM ay ku laayeen degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ayaa sheegay in farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ay abaabulayaan culummo si looga hortago Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. amar ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu kala diray ciidamadii gacanta ku hayay amniga qaybo kamid ah gobolka Mudug ee maamulka Galmudug. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan la qaatay hoggaanka dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya kalena hadlay soo xulista xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. akhbaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idin haysana dhageystayaal waxaa kamid ah weerar kooxo hubeysan ay ka geysteen bartamaha caasimada dalka Ciraaq ee Baghdad iyo ra'iisul wasaaraha dalka Qatar oo la filayo inuu booqasho ku yimaado boqortooyada Sacuudi Carabiya. markale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku asteysan tahay 7 bisha 12 ee Diseembar sanada 2019 ku soo dhawaada warkii oo fidsan. warar kala duwan ayaa laga helayaa weerar kooxo hubeysan ay ku qaadeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo ku safrayay waqooyi bari Kenya. dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. wararkii u dambeeyay waxaa soo koobaya Cabdicasiis Saciid Yuusuf. sidaan ku helayno wararka naga soo gaaraya galbeedka wadanka Kenya waxay ku waramayaan in kooxaha hubeysan oo Islaamiyiin ay weerar ka geysteen qaybo kamid ah halkaasi isla markaana gaari ku socdaalayay kuna sii jeeday magaalada Mandera ay weerar dabagal ah ku qaadeen. weerarkan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 10 qofood oo shacabka dalka Kenya isla markaana afayeen u hadlay booliska dalka Kenya waxa uu xaqiijiyay weerarkan inkastoo uusan cayimin tirada rasmiga ah ee ku geeriyootay weerarkaasi. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay inay kala saareen dadka gaariga saarnaa oo ay sheegeen inay ku jireen dad muslimiin ah waxayna sheegeen inay dileen kuwii aan islaamka ahayn ee saarnaa gaariga sida ay hadalka u dhigeen. waxayna sheegeen weerarkan inay ka fuliyeen tuulada lagu magacaabo Kutulo oo ka tirsan gobolka Wajeer ee waqooyi bari wadanka Kenya. Al-Shabaab waxa ay sheegteen in weerarka kooxaha fuliyay ay si nabadgelyo ah goobta kaga tageen isla markaana aysan waxba soo gaarin. dhanka kale dawladda dalka Kenya afayeen u hadlay booliskooda waxa uu sheegay in haatan baaritaano ay wadaan waxauna ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi. Al-Shabaab ayaa inta badan weerar ka fuliya qaybo badan oo kamid ah gobolada iyo waqooyi bari wadanka Kenya waxayna weerar gaadma iyo sidoo kale weerar dabagal ah ku qaadaan ciidamada Kenya ee isticmaalaya kuna socdaalaya wadooyinka isku xira magaalooyinka waaweyn ee waqooyi bari dalka Kenya.
roobab saacadihii u dambeeyay ka da-aya deegaanada Puntland ayaa la sheegay inay sababeen dhimasho dhaawac halka la sheegay kuwa kalena ay la soo badbaadiyay. xalay saqdi dhexe ayaa roobab xoogan waxay ka da-een magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Bari siiba magaalooyinka Qardho iyo sidoo kale Boosaaso, waxaana wararka aan helin ay sheegayaan in wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Qardho iyo Boosaaso laga soo badbaadiyay tiro dad ah kuwaas oo la sheegay inay safar ku ahaayeen wadadaasi. gaari ay saarnaayeen ku dhowaad 15 ruux oo laba gaari ahaa ayaa la sheegay in tog uu qaaday, waxaana dabadeeta la sheegay inay u gurmadeen dadka shacabka ah iyo taliska booliiska gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland. gaashaanle sare Cabdiraxmaan Axmed, taliyaha ciidamada booliiska gobolka Bari oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso, ayaa waxa uu sheegay in ay soo badbaadiyeen dad aad u badan, isagoo ka digay in la safro inta uu roobabkan ay da'ayaan. aad baan iyaga ugu mahadcelinahay. gurmadku wuxuu ka mid yahay in qof la badbaadiyo, ilaahay baa badbaadada leh, laakiin waa aad bay muhiim u tahay. annaga waxaan u taagnaan doonaa saacad walba iyo waqti kastaba inaan ummadda u shaqayno, u badbaadino oo u gargaaro, oo saacad walba wixii aan ku dhaanno aanu u nimaano. ciidamaduna gaar ahaan waxay ugu yihiinba inay dadka shacabka ah markii aafooyin ku dhacaan in lagu badbaado. annaga saacadeed noqotoba waan u tegaynaa. waxaan leenahay amaamiirta aan bixino inay shacabku qaataan, inay qaataan baan leenahay. haddaydan qaadan khatartaas oo kala arkaysaan. galabta waxaan idin sheegayaa wixii ugu horreeyay oo soo waca markaan baabuurta joojiyay wuxuu ahaa qof qaad walaabo. wuxuu yidhi adeer waa mari karaa qaad baa qara ka digay. adeer waxaan dhibaataa jidhici ka dhaa waddankan dhib baa ka jira, roobkaas waa la sheegay wax ka saaban kara. daqiiqado kama soo wareegin markii la yiri gaari bay la tageen, gaari labaad, gaari saddexaad. waxaan leeyahay hal la qaato amaamiirta, magaalada ha lagu sugnaado, yaan dadka la haligin. darawallada baabuurta waaweyn xamuulkaana yaa la rarin ilaa amar dambena la ka helayo. gaari la rari karaa ma jiro, magaalada ha ku sugnaadeen, dadka yaan la haligin. baabuurta yaryar sidaas oo kale, qof xanuunsan oo dee asaga xanuun loo soo qaado jiran waa baab kale weeye. wixii aan marsiin karo waa marsiinaynaa. tog meel hadduu yahay meesha kale inaan baabuur soo taagno waa isku dayaynaa. laakiin waxaan leeyahay bifadlan intaas roobku da'ayo haddeer saadaashu waxay sheegaysaa inta hadda aanu meesha togno loo sheegayaa inay roobabku ka sii xoog weyn yihiin haddeer say saadaashu sheegayso. marka waxaan leeyahay ilaa iyo amar dambe dadweynaha ha ku sugnaadeen magaalada, ha lagu sugnaado, yaan dadka la haligin. gaashaanle sare Cabdiraxmaan Axmed, taliyaha ciidamada booliiska gobolka Bari ayuu kaasi ahaa. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya ay isaga u abaabulayaan koox culimo ah. Cabdifataax Muumin ayaa warkan faahfaahinaya. siyaasiga lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyay dowladda uu hogaanka u hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoona ku eedeeyay in ay u soo adeegsanayaan culimada Soomaaliyeed, isagoona sheegay in muhiim ay tahay in la fahmo hadaladii dhawaan uu sheegay. siyaasiga uu shir jirayd ku qabtay gudaha magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in dowladda hogaanka u hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asigoo u soo adeegsanaya Fahad Yaasiin Xaaji oo ah agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay doonayaan in ay ka taqluusaan. isagoona arrimaha ay u soo marayaan ayuu ku sheegay in ay tahay in dhinaca culimada iyo waliba hadalkii dhawaan uu yiri oo si kale loo yiri, isagoona ka hadlaya arrimahaasi arrimo kale eedeena u jeedinaya xukuumadda iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu yiri kooxdaas waxaan haystaa koox laga soo abaabilay filla Soomaaliya oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin ay soo abaabuleen. وحكمكنا كواسا كانوا وحكمكنا عدكينا كعباديستا حدنا وحير هبر أيضا شريعة الإسلام كن خلافي مناهجتي دين تدن خلافي حرمتي ديك مسلم كهاي آنن حيرينين أي ربان إنه كرسي فضوك ولا هيان سومالية وقادة رجاسو دين النصيحة ومجيدان عبدالرحمن عبدالشكور وحيكو هايستان رجع حكمك كلا دحيو لولنكا معارض نمدي تاجرسيه waxaadna ka garanaysaa qodbooyinkoodna kambayna ku jiro codka yaana siinin odow rabaa yuusa ina xukumin haddoona xukumo uuna laynayaa wuxuu kasoo horjeedaa diinta. waxaasoo dhan waa ku dhuumasho, waa ku gabasho. culimmadaas ictisaamaa layidhaahda taariikhdoodana mar kala faahfaahsan dalkan dhibaatada ka geysteenan ka sheekay doonaa. fariinta kale waxaan u dirayaa dowladda Soomaaliya
waxaan dhegaystay maanta wasiirkeeda warfaafinta wuxuu yidhi xasan daahir aweys waa nin difaacaya diinta islaamka go-aankaa soomaalida u daynaya hadduu xasan daahir yahay nin diinta difaacaya laakiin waxaan halkan ka caddaynayaa in fadwadii uu iga soo saaray oo bannaynta dhiiggayga dowladda aysan cambaaraynin xasan daahirna u taqaanin diinta difaacayo soomaaliya dowladdiina waa taasaa ninkaasay diinta inuu difaacayo u taqaanaa kumanaan kunoo dadkiina ka mid ah dhulka hoostiisa geliyey qaraxii shaam oo laga soo bilaabo kii hargahay saamaha kii sooba kulli ku wada faraxsan ninkaasay u taqaanaa diinta inuu difaacayo mana aysan cambaarayn fadwadiisii halkaasna waxay caddaynaysaa inay raalli ay ka yihiin waa koox isku xiran al-shabaab nimanka jooga filla soomaaliya iyo al-ictisaam ummadda soomaaliya inay iska difaacaan ugu baaqaynaa dhawaan ayay ahayd markii siyaasiga cabdiraxmaan cabshakuur warsame khudbadda uu jeediyey ay dhalisay hadalhayn aada u badan taasoo inta badan culammada soomaaliyeed ay siyaabooyin kala duwan ay ugu hadleen dhinaca kale dowladda soomaaliya oo u hadlayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayr maareeye ayaa hadalkaasi ka jawaabay mar uu la hadlayay la-aanta afka soomaaliga b b c da isagoona sheegay in ay sheekh xasan daahir aweys uu yahay maxbuus xaqna u leh inuu helo waxyaabaha nolosha asaasiga u ah iyadoona sidoo kale siyaasiga cabdiraxmaan cabshakuur warsame uu ku eedeynayo dowladda soomaaliya inay doonayso inay dhiiggiisa ay banaysato xilli uu sheegay inay usoo marayso dhinaca diinta madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen dad shacab ah oo dhowaan lagu laayay degmada buulo burde ee gobolka hiiraan banaanbax dhowaan ka dhacay degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad 3 ruux waxaana la sheegay in dadka dibadbaxa dhigayay ay rasaas nool u adeegsadeen ciidamada amisom gaar ahaana kuwa jabuuti ee ku sugan degmada buulo burde ee gobolka hiiraan dhacdadan ayaa la sheegay in ay soo farageliyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana la sheegay inay la wareegeen kiiska dadka halkaasi lagu laayay si loola xisaabtamo cid walba oo ka dambeysay falkaasi ugaas maxamed nuur qaasim oo ka mid ah hogaanka dhaqanka degmada buulo burde xalana ka qayb galay kulan ay lahaayeen hogaanka dhaqanka iyo ciidamada Jabuuti ee qaybta ka amisom isla markaana la hadlay idaacadda Simba ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii ka dhacday degmada buulo burde ay mas'uuliyadeeda qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa Hirshabeelle waxa uu tilmaamay in madaxweyne Waara iyo ku-xigeenkiisu ay amar ku bixiyeen in shacabka la laayo ka gadaal markii dibadbax uu ka dhacay degmada buulo burde adeegtaas baaritaan uma baahna madaxweynaha Hirshabeelle u sarreeya iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka dambeeyay arrintaas oo amarka siiyey maaragtay Jabuuti hadoo ciidan kale Jabuutina dadka ilaashay asgari qaray daawacday nin masaakiin oo mudaaraadka ku jiray oo maaragtay dhalinyarada ay dishay taasoo Jabuuti iyo Hirshabeelle lagu leeyahay maxaad ku cadeynaysaa in madaxda Hirshabeelle shacabkiiba matalaane maxaad ku cadeynaysaa in iyagu ay ka dambeeyeen oo amarka ay bixiyeen amar wafdiya subaxaas imaanay ayaa laga soo diray rabajoor dadkuna waxay ka mudaaraadaan waxa lagu qasbaa sharci darrada ah isla markaa markii la ogaaday in mudaaraad diro amara la siiyay amisom waxaana la yiri mudaaraadayaasha joojiya haddii la yiri joojiyana dadkaana ku dhintay mas-uuliyadda ciddii joojiya keliya iskale aad qaadaysa mas-uuliyadda wuxuu dhintay wuxuu dhaawacay madaxweynaha Hirshabeelle eedeymahan ay soo jeedinayaan hogaanka dhaqanka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo maanta la filaya in degmada buulo burde uu ka dhaco kulan la sheegay in lagu xalinayo khilaafka curyaamiya shaqada maamulka buulo burde dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay kala dirtay ciidamo la sheegay in ay ku sugnaayeen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo warbaahinta kula hadlaya magaalada Muqdisho ayaa eedeymo xooggan waxa uu jeediyay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ku guuldareysatay in ay mushaar joogto ah ay siiyaan ciidamada milatariga Soomaaliya iyo kuwa booliiska iyo kuwa isku dhafka ahaa ee magaalada Gaalkacyo waxa uu sheegay in aysan dhacdeen dhacdadii lagu laayay dad shacab ah ama dirirtii dhexmartay beela wada daga halkaasi haddii ay ciidamadaasi jiri lahayn
waxaa nasiib darro ah ciidamadii isku dhafkaa oo gaalkacyo joogay waa la dayacay, wasaaraddii gaashaandhigu way dayacday, kuwii booliiska ahaa booliisku wuu dayacay, waa la dayacay, waa kala tageen, gaadiidkoodii baa la kala qaatay. aad iyo aad baan uga xunahay maaragtay wixii aan ka soo shaqaynay oo intaa ku soo cidiya beellay in sidaas deg dega ay ku dhumaan waa nasiib darro. waxaan leenahay walaalayaal, hanala ku simo waa imaanaynaa, hanala ku simo waa imaanaynaa. baashii dib baan boorka uga jafi doonaa ilaahay ciidankii inaan ummadda isu keenno meel kasta baan joognay. maamulkan haddii aan anugu ka tegay iyo kii kaloo yimaadaaba waa in loo yimaadaa oo la muujiyaa in meeshii shaqo laga qabto. nagu sima intaan shaqo qabanayno waa la soo daadanaya, dadkana waa soo diraynaa, odayaal iyo cid walbaba. hadda berri iyo saadaba waxaa idiin imaan doona wasiir axmed shire iyo rag kalaa idiin iman doona oo la rabo inay goobta tagaan oo meeshii tagaan oo dadkii dhex maraan. ciidamada jooga dhuusamareeb oo faraha badanna waxaan ka rajaynayaa ugu yaraan 150 ciidana waa in loo diraa meeshaas oo dadka ay kala dhex galaan. haddii ciidankii booliiska ahaa oo meelaha joogjoogay kulligiis dhuusamareeb baa la keenay. weli warka subaxnimo ee raadiyaha Simba ayaad maqlaysaan dhageystayaal. markan akhbaaraadka dibadda. nin la sheegay inuu ku hubeysnaa mindi ayaa la sheegay inuu soo dhexgalay dad dibadbax ka dhigayay magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq. tiro dad ahna waa uu dilay. ciidamada booliiska ka hortaga rabshadaha ayaa waxa ay shaaciyeen magaca ninkan, waxayna sheegeen in da-diisu ay tahay 26 sano jir. dad dibadbax ka dhigayay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad ayuu ninkan soo dhexgalay, dabadeetana waxa uu bilaabay in uu dadka laayo, walow markii dambe ciidamada booliisku ay toogasho ku dileen. ku dhawaad dhowr iyo 10 daqiiqo ayay ciidamadu amar ku siinayeen in ninkan uu joojiyo dagaalka, mindidana uu dhigo, ciidamadana uu isku dhiibo, balse waa uu diiday. dabadeetana halkaas ayaa lagu toogtay, ayuu u sheegay wakaalada Anadolu ee dalka Turkiga afhayeen u hadlay ciidamada booliiska. magaalada Baqdaad fagaarayaasha ku yaala wali waxaa kasii socda dibadbaxa ay dhigayaan dadka shacabka ah. guud ahaan dhageystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Simba oo naga inta